halkan waa xogta TV kuna soo dhawaada wararkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah maamulka gobolka Gedo oo ka hor yimid talaabadii uu qaaday madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe ee baarlamaanka maamulkaasi uu ugu kordhiyay muddo kororsi hal sano ah haddaba maamulka Gedo ee ka soo horjeeda Axmed Madoobe maxay ka dhaheen muddo kororsiga warar ku saabsan ayaa daawan doontaan siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin kale oo ka hor yimid talaabadii uu qaaday madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe haddaba maxay ka yiraahdeen macluumaad ku saabsan ayaa daawan doontaan saraakiil Itoobiyaan ah oo ka degay magaalada Garowe ee xarunta Puntland xilli Abiy Ahmed uu cadaadis xoogan ku hayo dawladda madaxweyne Xasan Sheekh haddaba muxuu damacsan yahay Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya xogo dheeraada ayaan idinkaga hayaa Mukhtaar Roobo Abu Mansuur wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliya oo fariin culus soo saaray kadib weerarkii Hotel Xayaat muxuu ka yiri weerarkaasi warbixin ku saabsan ayaa daawan doontaan qodobadaasi iyo kuba kale ayaan faahfaahin doonaa waa Isniin 22 Agoosto 2022 hadaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube kana kadibna furo gambaleelka si wararkeena aad u hesho sidoo kale like saar muuqaalka u diyaar garoow faahfaahinta wararkaasi gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Gareed ayaa si adag uga hor yimid muddo kordhin uu baarlamaanka Jubbaland u sameeyay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Madoobe wax ka bedelka uu sameeyay baarlamaanka ayaa ka dhigan in muddo xileedka madaxweynaha hadda jooga Axmed Madoobe uu ku ekaan doono bisha Agoosto 2024 halkii la filayay in sanadka soo socda ee 2023 la qabto doorasho gudoomiyaha Gedo Axmed Buule ayaa talaabada uu qaaday baarlamaanka dawlad goboleedka Jubbaland ku tilmaamay mid aysan aqbali karin taasi oo uu ka dambeeyo madaxweyne Axmed Madoobe waxa uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ugu baaqay in uu si degdeg ah u soo farageliyo arintan si xal looga gaaro Jubbaland labada dhinac noqotay wax aan aqbalayno ma aha muddo kororsi dhibaatooyinka muddo kororsiga ka dhacay xog ogaal ayaad ka tahay madaxweyne waxaan aaminsanahay in isku halayn dhankaaga lagu ansixiyay waa in aad jawaab degdeg ah ka bixiso xukuumaddaada ayuu yiri gudoomiyaha Gedo sidoo kale waxa uu ka deyriyay xaaladda maamulka haddii arintan sidaasi ku sii socoto aysan marnaba yeeli doonin isku dayga uu ku meel marsanayo xukun dheeraysiga sida uu hadalka u dhigay doorashadii u dambeysay ayaa ku kala tagnay annaga iyo Axmed Madoobe ilaa hadda ma jirto wax dib u heshiisiin ah oo la isugu yimid waxaa balan qaad sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waana ka warsugaynaa ayuu hadalkiisa intaa ku daray si kastaba markii u horeysay ma aha maamul uu muddo kordhin ku sameeyo muddo xileedka madaxda ayada oo horey sidaan oo kale muddo xileedka 5 sano ka dhigay baarlamaanka Koonfur Galbeed muddo hal sano ahna ugu daray madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen inkastoo arintaasi uu wali buuq siyaasadeed ka taagan yahay waayahay wararka Jubbaland intaan ka bixin siyaasiga Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake horeyna u soo noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa isna ka hadlay muddo kordhinta ay baarlamaanka maamulka Jubbaland u sameeyeen madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Madoobe Cumar Cabdirashiid ayaa si dadban uga hor yimid muddo kororsiga Axmed Madoobe oo muddo dheer madaxweyne ka ah Jubbaland waxa uurleyda uron ayaa uur ku jirka uron haddii Jubbaland muddo kororsigeedu ay la wanaagsan tahay dawladda federaalka Soomaaliya waa inay dawladda federaalka caadi la noqotaa muddo kororsiga maamul goboleedyada kale sidoo kale ayuu ku bilaabay ku dhaqanka sharciga laguma adkeyn karo qaar kalena looma ogolaan karo inay adeegsadaan awood si dana gaar ah loogu gaaro ayuu daba dhigay qoraalkiisa si kastaba Cumar Cabdirashiid ayaa ka mid ah siyaasiyiintii ologa la ahaa ama ay isku safka ahaayeen madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad u hesho warar sugan oo xaqiiqo ah sida aan ogaanay saraakiil sarsare oo ka tirsan militariga dawladda Itoobiya ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ee caasimadda Puntland soo dhaweynta saraakiishaasi waxaa loo xil saaray taliye ku-xigeenka ciidamada Puntland waxaana markii ay ka soo degeen garoonka loo galbiyay madaxtooyada maamulkaasi halkaasi oo kulamo ay kula yeesheen madaxda maamulka Puntland
dowladda Itoobiya ayaa waayahan dambe xusul duub ugu jirtay kasbashada madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya taas oo soo bilaabatay markii uu isbedelka siyaasadeed ka dhacay Soomaaliya sidoo kalena ay al-shabaab isku dayeen inay gudaha u galaan dalka Itoobiya. Booqashadan ayaa astaan kale u ah sida ay Addis Ababa sare ugu sii qaadayso faragelinta iyo cadaadiska ay ku hayso dowladda madaxweyne Xasan Sheekh. muddadii uu dalka madaxweynaha ka ahaa Farmaajo oo ay saaxiibo ahaayeen Abiy Ahmed marna ma dhicin in saraakiil Itoobiyaan ah ay dalka sida ay u doonaan ugu soo talaabaan lana macaamilaan maamul goboleedyada dalka. waxaa horay u jirtay in saraakiil Itoobiyaan ah ay dhowr jeer tageen Baydhabo ayaga oo la macaamilaya madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo sidoo kale toddobaadkan hub la soo gaarsiiyay. Itoobiya ayaa doonaysay in Xasan Sheekh uu noqdo madaxweyne siyaasadiisa arrimaha dibadda laga maamulo Addis Ababa taas oo sida muuqata uu ku guuldareystay waxayna bilowday cadaadis ka dhana xukuumaddiisa. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa looga fadhiyaa inuu go'aan ka gaaro sida uu ula macaamilayo Itoobiya kadibna uu ku dhaqaaqo go'aankiisa. gabagabada wararkeena ayaan joognaa. wasiirka diinta iyo awqaafta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo la hadlayay warbaahinta isaga oo ay garab fadhiyaan qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii xooganaa ee ay al-shabaab ku qaaday hotelka Xayaat. Mukhtaar Roobo ayaa shaaca ka qaaday in wax lagu xumaado ay tahay weerarada ay al-shabaab ka geysanayaan guud ahaan dalka isagoo tilmaamay in aysan ahayn wax diin ah. wasiirka ayaa ku baaqay in loo midoobo dagaalka al-shabaab wuxuuna hoosta ka xariiqay in qof walba laga doonayo inuu difaacdo naftiisa iyo maalkiisa. sidoo kale wuxuu fariin u diray dhalinyarada weli ka barbar dagaalamaysa kooxda al-shabaab oo uu tilmaamay in la soo qalday siduu hadalka u dhigay. waxaan leeyahay dhalinyarada shabaabka ah kuwa aan aqaan ee idin soo qalday ilmahooda iskuulo iyo jaamacado ayay xamar ka dhigtaan ama adduunka kale nolol fiican ayay ku jiraan yaysan been idin sheegin ayuu yiri Mukhtaar Roobo Abu Mansuur. waxaa kale oo uu intaasi ku daray in si wadajir ah loola dagaalamo al-shabaab kaliya looga gudbi karo dhibaatada ay ku hayaan dadka iyo dalka Soomaaliya. hadalka ka soo yeeray Sheekh Roobo oo haatan ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyada oo weerarkii ugu waqtiga dheeraa abid ay kooxda al-shabaab ku qaaday dhismaha hotelka Xayaat kaasi oo socday wax ka badan 24 saac oo xiriir ah. si kastaba Mukhtaar Roobo ayaa horay uga mid ahaa hogaanka sare ee al-shabaab balse wuxuu 2017 isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya isaga oo kadib ku biiray siyaasadda wallo Muqdisho uu ku xirnaa ku dhawaad 3 sano. halkaasi ayaan ku hakinayaa warkii aad ka daawanayseen xogta TV ee nabadgelyo.